Kusoo dhawaad qaybtii lixaad iyo musalsalkeena waxaan arkaynaa Tooreen oo guriga kusoo laabtay wuxuuna ka imaaday shaqo hooyadiis wuxuu weydiinayay inay cashaysay isna iyadana wuxuu ku dhahaysaa adiga ayaa ku sugayay isna wuxuu dhahaa hoo cuntadaada ka fikir waqtigeeda ku cun wuxuuna u sheegay inuu iska dayn doono jaamacadda uuna shaqayn doono halkale hooyadiis waxaa kusoo boodaya xanuun waxaa la keenayaa isbitaalka waxayna dhahaysaa waa inaan ka baxnaa lacag maysan isna wuxuu dhahay wiil saaxiib isku galaasnaana ayaa lacag kasoo deynsaday waa lagugu daaweynaya meel u bixis meel hooyadiis sidaas ayayna hooyadiis kooma ugu galaysaa dhanka kale xusuusta kasoo laabanayna waxaan arkaynaa Tooreen oo guriga soo socotay rishada waxay dhahaysaa guriga ma imaatay isna hadda albaabka taaganayo dhahay wuxuuna dhahay caasha ayaa ku wadaya soo bax hal sax ayaa haysta saaxiibadana jaabo way diyaariyeen waxayna soo aadaysaa Tooreha si ay iskula casheeyaan waxayna weydiinaysaa in dhibaato ay ka hayso dhanka shaqada sidii wuxuu dhahayaa maya ma faraxsanid waxa uu agtay inay murugaysantahay ayay dhahaysaa laakiin isna wuxuu dhahay aniga waa faraxsanaa waxay dhahaysaa isugu waxayna usoo sameynaysaa ninac suuf wuxuuna soo aadayaa meesha wuxuuna arkayaa jijintii inuu soo xiratay kabacdi waxay ku wareejinaysaa ninac suufkii u samaysay waxayna dhahaysaa cunugaaga waxaa ka farxinaysa camal iska dhigayso ayuu dhahay iyadana waxay dhahaysaa cunug weynaada ayaa tahay wuxuuna dhahayaa jacaylkay waa aqbashaaya oo malayna iyadana waxay dhahaysaa maya laakiin sabab bay dhahaysaa maxaa yeelay jijintii ay kuu keenaya soo xiratay dhinac suufna qof saaxiibtuna waxaas uu sameynaa ma jiro iyadana maya ayay ku dhahaysaa maalinka kale waxay soo aadayaan dhanka iyo siminaar ay rabtay in cashirkiisa ay dhegeysto Tooraan silan filan ayuu imaanaya saaxiibteena sawir ayay ka qaadaysaa waxayna u diraysaa labadeeda saaxiib kale qolkiis la degan yahay laakiin iyaga waxay dhahaan aad ay isku qurux badan yihiin way isku soo baxayaan isna wuu soo dhawaanaya xusuusta ku laabanayna walaalkeed wuxuu dhahay walaashay wiil ayay jeclaatay ayuu in la qiyaamo marow sidii hore camal ayuu dhahayaa walaalkeed andana waxay u soo dhawaanaysaa wayna shuminaysaa waxay ku dhahaysaa wuxuu ku dhahayaa sabab markaas waxay dhahaysaa adiga ayaa sameyn rabay waxaa soo galaya macalinkii siminaarka soo jeedin lahaa andana wuxuuna u sheegaa waxyaabaha loogu baahan yahay waxyaabaha siminaarka ayaa soo dhamaanaya waxay soo aadayaan banaanka waxaana maalinkaas banooni lahaa wiibi saaxiibkeeda meesha ayayna saaxiibkeed ku taageeraysay waxaana meesha wax ku gaarayo jaanmiin waxaana loo baahanaa qof oo lagu bedelo waxaana dhankaas lagu bedelaya Tooraa wuxuuna u dheelinayaa goolal badan kooxda jaanmiin andana waxaa meesha kusoo dhamaanaya ciyaarta waxaana guusha ay raaxaysaa kooxdii jaanmiin ama Tooraa uu gadaal dambe kusoo biiraya jaanmiin wuxuu u haystay in Sanjay walaalkeed ooyay laakiin waa laga jahil bixinaa dhanka kale asxaabta waxay isweydiinayaan waqti waxay qaban lahayd samiriga waxay dhahaysaa shirkadda ayaa geemkeyga ka heshay waxaa u baahanay inaa fursadaas ka faa'iidaysatan waxay dhahaysaa waxyaabaha ani u baahanay inaad diiradda saaro halka wiiwi ee dhahay saaxiibka ayaa samarka isla qaadanayna Sanjay waxay soo wacaysaa walaalkeed waxayna u sheegaysaa inay rabto magaalada inay joogto ina tababar isna wuxuu dhahay maya kusoo laabo magaalada gabadhana waxay ka heshay miskiin waxay ka heshay jaanmiin waxayna usoo dhiibaysaa balmaatay lugta u fiican si uu iskaga mariyo isna wuxuu dhahay ugu mahadcelinaya saaxiibadeed waxay dhahayaan hadaa ka heshay ma u sheegtay waxay dhahaysaa waqti ku habboon ayaa u sheeganaya andana waxay ku heshiinayaan midaas dhanka kale Tooreen wuxuu la soo hadlaya tirishada wuxuuna ku dhahay caawo fursad ma haysa iyadana waxay dhahaysaa fursad ma hayi bal laakiin qof ayaa surprise u sameynaya andana isaga ayay u imaanaysaa waxayna ula dabaaldegaysaa dhalashiis waxayna usoo wadaysaa ugu wada casheeyaan waxayna dhahaysaa asxaabtaasoo kuma hambaliyeen isna wuxuu dhahay iyaga xataa ma xasuusantooda dhalashadooda iyadana waxay beedhaawaysaa inay walaalkeed la hadasho andana walaalkeedna wuu soo xasuusnay wuxuuna soo wacayaa Tooreen wuxuuna u hambalyeynaya dhalashadiisa wuxuuna dhahaysaa walaashay hadiid makuu keenaha ayuu dhahaya andana ana iga socota ayuu dhahaya iyadana beenta waa ayay dhahaysaa isla socotiin caawa isla soo casheen rabaa ayay dhahaya waxayna meesha ugu aqbalaysaa Tooraha jacaylkiisa andana waxay usoo sameynaysaa baasto waxayna bilaabaysaa inay wax niyeysa dhahay isna wuxuu niyeysanayaa waxay dhahaysaa niyadaada waa laga aqbalay jacaylkaagana waa ka aqbalay andana waxay isku soo raacayaan xeeb si ay u sheekaystaan hooyadiis ay dhimatay aabihiisna uu kooma ku jiro nolosheeda kusoo dhawaayuu leeyahay baawar ayaa haystaa gurina ma haysta lacag ayaa meel dhigtay iyadana way ka aqbalaysaa andana subaxii dambe waxay dhahaysaa waxa u socdaa maktabadda isna wuxuu dhahay soo baxay maktabadaha korontooyinka way ka tagsan yihiin gurigiisa ayuu keenaya wuxuuna bilaabaya inuu casharadaada baradho miis ayaa kuu sameeyey ana adaa ku fiirsan ayagana soo ima fiirsan ayay dhahaysaa dhanka kale waxa usoo laabanaynaa xasuus maalinkii intuusan dhalashadiisa gaarin waxay u dalabtay keeg waxayna soo wacday hooyadeed si ay ugu caawiso Tooraha baasay u sameyn rabtay andana wuxuu dhahayaa waa kaa tagay xaasidiyey wuxuuna usoo sameynayaa qado weyn isla qadeynaya waxayna dhaqaysaa alaabtay ku qadeeyeen
waxaa qabanaysa hurdo waxayna bilaabeysaa inay seexato laakiin waxay maqlaysaa tooraha jiftiisa waxayna bilaabeysaa inay dhulka fadhiisto wuxuuna dhahaa dhulka maxaa ka doontay waa xiiseynaya ay dhehaysaa andana waxay dhehaysaa iga fogow laakiin kama cabsanayo laakiin markay ii soo dhawaatay ayaa ka cabsada wuxuuna usoo wadaya kambaskeeda habeenkii wuxuu la hadlayaa Qiyaanfiin wuxuuna u sheegaya in gabadhii ay ka aqbasay jaceylkiisa ugu mahadcelinaya isna wuxuu dhahay magaaladaada ayaa soo socda maalinkaas waa inaa casuumaad fiican ii samaysaa dhan kale wuxuuna dhigayaa Qiyaanfiin gruubka inuu tooraha jaceyl samaystay wuxuuna soo baxayo tooraha Atirisha walaalkeed wuxuuna dhahay kan muxuu kaaga caawiyaa anaaba ka caawin lahaa dhanka kale waxay bilaabaysaa miskiin inay projectigeed ay diyaariso inay isku soo aruuriso xog Sanjin waxay u imaanaysaa Bibi waxayna u sheegaysaa inay ka cabsato markuu toora u soo dhawaaday waxay dhahaysaa xitaa saas ay u iga cabsan jiray asaga laakiin kama cabsan jirin dhanka kale Atirisha iyo toora waxay isku soo raacayaan si ay u socdaan kabaha baabuurka camal andan waxay bilaabaysaa inuu baro maadaama uu asaga si fiican u kasaayo dhanka kale waxay Atirisha galayaan imtixaankoodii ugu dambeeyay waxaana ay meesha ku soo baaminayaan imtixaankooda waxaana soo wacay Atirisha shirkadii ay ka codsatay inay tababar ku soo qaadato waan laga aqbalaya dhanka kale waxay arkaysaa tooraha oo la taagan gabar waxayna dhahaysaa wiijadka iyo qalisna wuxuu dhahay jaceylkeeda ogaad intaas weydiinaysaa andan waxay isku soo raacayaan supermarket iyadana wiil ayaa u imaanaya wuxuuna ka codsanaya wiijadka isku darsan iyadana waxay dhahaysaa jaceyl ayaa lahay garaal naqa toorahan wuxuu dhahay kama xun wiijad lagu weydiiyey maskiinayna waxay dadaawanaysay Qiyaanfiin fiidiyoyada ee maanta kasoo duubtay Bibi waxay dhahaysaa ma ka caawinaytaa inaa caawiyo watan waxay dhahaysaa ma ha caawin iska iyada waxay rabta samaysanaysaa dhan kale iyagoo shir ku jiraan waxaa xanuunsanayso Siyuul waxaana u imaanaya ninkeeda wuxuuna dhahay isbitaalka ayaa u wadaya tooraha waxaa lahayaa sii wad shaqada Sanji walaalkeed wuxuu ku dhahay magaalada ku soo laabay waxay dhahaysaa iyo kaas ku doqomaysan ay shukaansanaysid andan waxay dhahaysaa isaga waxaa waaye Duwanshu waa isna laakiin block ayuu saaray dhanka kale waxaa arkaynaa maalinkii koowaad ee shirkadda waxaana loo sheegay dhinacii ay fariisan lahayn ee ka howlgal lahayn qoftan iska bar waxaa la lahaa Shaasha Yuwana madaxa qorsheynta ee shirkadda waxayna soo xasuusinaysaa habeenkii waan gabadhii ex tooraha gabadhii ku jecleed gabadhii la jirtay habeenkii waxayna bilaabaysaa inay iskeen dhitirto Atirisha iskeen dhitir waxaana loo dhiibaya faylal badan waxaa la lahaa soo xali koobin iga soo qaad markaas waxayna dhahaysaa haddaadan aqoon u lahayn maa weydiisi dadka kaa horeeyay waxaana u imaanayaa tooraha wuxuuna u keenaya wuxuuna u hambalyeynaya maalinkii ugu horeysay shaqadeeda andan waxay bilaabanaya inay sheekaystaan wuxuuna siinaya boonbala haddaa xanaaq dareentid waa inaad isaga dharbaxda saa murugadii stresska oo kaaga bacalla waxaana loo bilaabay shaqada inay ku adkaysa ayay gabadh bilaabaysaa wiilkan kalena oo Atirisha la jiro waxaa lahaa Waanshi wuxuuna gacan u dhigay wiilka ugu horeeyay shirkadda kala tusay waxaana dhahaysaa waa ku dhamay faylka inta ku dhiga xafiiska iyo kuwa kala xaliya Allah Atirisha waxayna u soo dhiibaysaa tooraha iyo wuxuu soo dhiibaysaa casho waxayna dhahay asxaabtiisna tusin wuxuu dhahay baxay dhaaf mis wax min ila xalna wuxuuna soo qaada Atirisha oo noo diray subscribe to my YouTube channel